حفلتنا waxaa ku saabsan madaxweynaha awlisteedu mudane Rashid Aw Nuur oo u socda dalkii Soomaaliya iyo wadamada kale Afrikada gaar ahaan Itoobiya iyo Soomaaliya Itoobiya iyo isku soo mari doona Soomaaliya iyo Kenya haday u suurta gasho iyaan caawa soo dhaweynayna oo sii sabooteeyna in yar hadaan iraahdo ku saabsan awdal state xaaladii loo abuuray ee dareenkii dadka ku kicisay loo abuuray wali xaaladii sidii u taagan yihiin walaalayaal waana ka sii darayaan marka waxa Soomaaliya kor waayeel waa indho waxa loo baahan yahay marka hawsha inaan la shaqeyno madaxda aan dooranay aanan dibna looga noqon waayo hawlihii inoo yeelay dareenka kiciyay way sidii bay u yaalaan dhamaantii waad maasantii kulli marka hore mudana iyo marweyn waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka madaxweynaha Awdal State karyaqaan Rashid mudane Rashid Aw Nuur wasiirka arrimaha gudaha mudane Ali Faarax iyo xubnaha kale ee Awdal State iyo dhammaan taageerayaasha iyo dadweynaha sharafta leh halkan iskugu yimiday dhamaantiin waxaan leenahay waad salaamantiin kuna soo dhawaada xafladan aanu ku soo dhaweynayno madaxweynaha Awdal State oo markii saddexaad I think inay tahay inuu nagu soo siyaarto halkan isagoo sii jeeda dhulkii hooyo sidoo Muuse ma sheegay aan wax badan oo maayo waxaan xoogaa madaxweynaha briefing yar siinayaa bal maamulka halkan Awdal State wixii uu qabtay iyo kulanadu sameeyay jaale madaxweyne markii lagu doortay November 4 maamulku wuxuu sameeyay laga soo bilaabo waqtiga ilaa imika 12 kulan ayuu sameeyay macnaha waxa u dhigantaa bishiiba hal kulan ayuu sameeyay kulamada kulankii ugu horeeyay waxa lagu dhisay dhismo maamulku meel gaar ah oo gudoomiyo ku xigeen iyo xoghayn iyo xubnaha golaha Awdal State oo ilaa 40 gaadhaya kuwaasoo dabeedna aan ka sii anba qaadnay oo nu sii sameeynay guddi hooseed guddiga dhaqaalaha guddiga isgaarsiinta guddiga dhalinyarada guddiga khilaafaadka guddiyo noocaasa oo mid walba shaqo gaar ah uu qabanayo oo markaa loo sameeyay mid walba shaqadu qabanayo kulamada aan sameeynay 12 waxa barbar socday anagoo wax contribution leeyahay bil walba ururku sameyn jiray taasoo wax badan ku qabanay haday noqoto xaflado iyo haday noqoto arrimo kale oo ururku u baahan yahayba xafladahaas oo ay kamid ahaayeen xafladii Awdal State 24 March iyo xafladii 26 June waxa inta barbar socday oo ururku qabtay qoraalo iyo wada hadaladii Soomaaliya 23 February ee Soomaaliya iyo loogu qabanayay wadanka UK waraaqa fara badan oo markaa aanu ka qornay wada hadaladaasi iyo siday laga maarmaan u tahay inay Awdal State ay kamid tahay qayb kamid ah Soomaaliya marka qoraalo fara badan ayuu ururku ku talaabsaday wada hadaladii Soomaalida loogu qabtay UK iyo kuwii Istanbul halkan ka dheer ee ururkaas uu qabanayay ama waxa ka shaqeynayay dhalinyaro gabdho iyo ragba ah oo siday u bilaabeen markii ay ururku bilaabmay ilaa imiga gacanta ku haya halganku waxa weeyaan dadku marka halgan la galo saddex qaybood baa loo qaybiyaa dad waa dad committed ah
halganka aan up and down wax ka soo mara laakiin shaqadii wada waayo dhibaatooyin fara badan buu halganku yeeshaa halganku wuxuu yeeshaa dhabar jabin fara badan buu yeeshaa niyad jab fara badan buu yeeshaa marba marka ka dambaysa dhibaatooyinku way isbedelayaan waxa weeyaan niyad jab fara badan siday wuxuu socdeen iyo siday adoonayeen wuxuu socdaan uma hagaagayaan sidaad ogsihiina ururku wuxuu ku shaqeeyaa dadka ka shaqeeya waa dad waqtigooga dheeraadka u hura inay ka shaqeeyaan lacag laguma qaato mushaar kuma socdo oo nin mushaar u socda ma jiro waa iskaa wuxuu qabso waqtiga dheeraadka ayaa lagu isticmaalaa oo ay dhalinyartu ay ku shaqeeyaan iyo contribution iyaguna markaa barbar socda markaa mid dad waa dad caynkaasa waana dadka ilaa maalintii Awdal State la sameeyay ilaa maanta dad baa gacanta ku haya oo aan ka nasan oo hiil iyo hooba la garab jooga dawladooda iyo ururkooda qaybta labaad waa qayb caadifad qaaday oo caadifad way iska jirtaa waa run caadifad baa ku qaadaysa waxbuu doonayaa inuu qabto laakiin haddana consistency male ma qaban karo wixii waxba ka qaldan ka bacdi waxa laga yaabaa markaa inuu gaariga uu la socdo inuu ka daato marka waxaad garataa ururo fara badan oo sida u socdaan kolna soo buuxsamaya kolna si dhinmaayo oo kolba ay wax ka dhinmayaan marka waxaad ka garanaysaa waa dhibaatooyinka ay leeyihiin halganku laakiin halganku waa in dad committed waa inay noqdaan qaybta saddexaad waa qayb iyagu ka soo horjeeda ururka ama waa cadowga Awdal State kuwaasoo siyaabo fara badan loo soo adeegsado iyagoo siyaabo fara badan kuugu imanaya ka dhex shaqeynaya aad moodaysa inay kula shaqeynayaan marka waxa soo dhanba markaad fiiriso waxa la dhaafi waayay dhalinyarta iyo rag iyo dumar leh ilaa maalintii la bilaabay ilaa maanta aan ka nasan taas ayaa la dhaafi waayay Awdal State markaa xaaladda imiga ay marayso way iska jiraan dhibaatooyin yar way iska jiraan laakiin shaqadii sidii loogu talagalay socotaa insha Allah sidaasana ayana ku soconaysa marka waxaan leeyahay Awdal State is not turning back dib uma noqonayso halkay ka joogto dib uma laamanayso inay hore uga socoto mooyaane dad way wax kasta waxba ka dhashay halganka wax kastaba wuxuu dhibaatadii u leeyahay dad baa liidaya dad baa oranaya saas wuxuu jiraan waa la isla caawiyaa dhinacyada la isla qabtaa laakiin ultimate waa inay shaqadii socotaa waa inay naga go'an tahay inta iyo dadkii wadaba shaqaasi inay sideedii u soo socoto marka Awdal State is still again is not turning back dib uma noqonayso wixii faahfaahinay kale Awdal State waxay ku talaabsanaysaa walaalayaal xaaladaha maanta jira haddaynu aragno in kastoo madaxweynuhu aad uga warrami doono siyaasadaha ka soo cusboonaaday dalkeena haddaad fiiriso waa xaalado adag weeyaan imiga haddaad gobolada Awdal u fiiriso lokayiseel iyo waxyaalaha ka dhacayo dhibaatooyin fara badan baa ka soo cusboonaaday dadku waxaad moodaa inay markaa mar alla markay dushooda timaado inay kacayaan inta kale ay hurdaan marka waxaad ka garataa qaylada ka soo yeedhaysa goboladeeni iyo dhulkeeni qaylada ka soo yeedhaysa ayaad ka garataa dhibaatooyinka imiga haysta sidoo kale Soomaaliyana waa siyaasadaha ka soo cusboonaaday isbedel weyn baa dhacay oo ka duwan kuwii hore taara madaxweynaha ayaa noo faahfaahin doona laakiin waa in lala socdo waa in isha lagu hayo xaaladahaasi maaha uun sidaa darteed waxaynu u baahannahay diyaar garow aad u dheer rag iyo dumarba inta naga maqan iyo inta naga joogtaba waxaan ka codsanaynaa markaa ururka maamulka Awdal State ee UK wuxuu ahaa maamuladii ugu horeeyay Europe ama aan idhaahdaba intan Amerikada inta fara badan maamulka lagama samayn waxa la rajeynayaa maamulkaas inuu halka ka sii socdo hadii Ilaahay idhaa sidaa uu socdana aanu ka soo laabanayn marka hadalkayga waxaan ku soo goobinayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ka waraysan waxaan halkan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Awdal State mudane Rashiid Nuur Cursi wasiirka arrimaha gudaha Cali Faarax Cabdilaahi gudoomiyaha Awdal State UK gudoomiye ku-xigeenka madaxda sharafta leh dadweynaha dhammaan ka soo qayb galay waxaan ugu salaamay salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan dabadeed waxaan doonayaa ka hadlo saddex qodob oo muhiim ah oo taagan oo ay ku fiican tahay mar walba xaaladdu markay taagan tahay in laga hadlo saddexda qodob waxa weeyaan dawaalahan
iyo maalmahan waxa TV-da kala socoteen warar soo baxay oo sheegayay dad aan u dhalan deegaanka inay sheeganayeen qaybo kamida gobolka Awdal ee Soomaaliya waynu ogsoonahay laga bilaabo Looyacade ilaa halka ay ku joogto dadka reer Awdal inta ay degan yihiin waxaad maalmahan la socoteen waxa maalmaha TV-da ka soo baxay dad marti ku yimiday oo marti ku soo galay gobolka martidana waa la yaqaanaa xeerka iyo sharafta ay leedahay marti waxay ku kooban tahay in la marti galiyo oo kaliya laakiin taariikhdeena ma soo marin marti faradhaadheer oo damac la timaada waxa la yeelay taa ka waantoobaan in maalina weyto waxa ku qabtay magaalada Hargeysa shir jaraa'id niman sheegtay in ay ka yimaadeen dalka Djibouti waxay ka dhawaajiyeen degmooyin iyo tuulooyin baryahan koox ay sheeganayeen oo ay ka cadeeyeen inay ka mid tahay degmada Lughaya carabka kale waxay ku dhufteen inay asal ahaan iyagu leeyihiin war waxa leeyahay laba isma qabato inaad marna ku dhawaaqdaan waxay tuulooyinkaasi ka mid yihiin oo waxa iska leh dadka reer Awdal marna aad tiraadaan asal ahaan annaga leh marnaba la dhiga yeeli maayo lana aqbali maayo waa fariin aan u diray maanta kuwa damcu kaga jiro dhulka reer Awdal haday dhageysanayaan iyo haday dhageysanayba qodobka kale ka dhawaajinaya bariyaan waxa soo baxay in xabaalo la faqo waa waxyaabaha Ilaahay laga alla baryo marxuum dhintay in dib loogu noqdo waxa magaalada Boorama maalin dhaweey jimcihii shir jaraad ku qabtay Sheekh Xasan Daaye wuxuu ka digay cawaaq xumada ay leedahay xabaalo la soo faqo waxa soo baxay inta la socota way la socotaa urur la magacbay SWC oo ka ganacsada lafaha dadka waxa agreement la soo galay shakhsiyaad matala maamul goboleedka Naasa Hablood ujeedada hadalka ka dambaysan waxa weeyaan in laga maraafacadsado lafaha dadka bini'aadanka ujeedadu ma aha in la soo saaro dad la xasuuqay qofka dhintay uu dhintay qofkii dhaarta u geysay Ilaahay baa la xisaabtami maalinta yawmal qiyaamo Ilaahay baa kala xisaabtami waxaan uga digaynaa ama ku boorina ummadda muslimiinta ama aan caadada waxyaabaha caadada ummadda Soomaaliyeed in xabaalaha la iska daayo in meydadka loo daayo meeshooda waa wax laga naxo ummadda Soomaaliyeed wax dhaqan waa maaha wax islaamnimada dhaqan waa maaha waa wax laga fiican yahay raa'udan la mid baa kula talinaya waxa kula talinaya kooxaha soo baxay ee ka manaafacadsada xubnaha dadka xabaalihiina ay ehelkiin iyo weydii ku jireen ee ka ilaashataan taara waa dardaaran markan taa uga sii gudbo taariikhdu way qoran tahay mid la bedeli kara maaha waxaad soo weydeen ab ilaa ab awow ilaa ka awow dadka reer Awdal waxay lahayn taariikh sooyaal taariikhiyo soo jireen ilaahayeen oo aan marnaba la dafiri karin waxaad ogsoontihiin taariikhiisa soo doomaray heshiisyada ka soo dhacay kii la galay Ingiriis kii la galay Faransiis dadkii u asalka ahaa kuwii u abka ahaa ee la galay waxa ay reer Awdal waa loogiya meelaha ay ka dhaceen waxa kamid ah Looyacada kamid ah Saylac baa kamid ah waxa kamid ah dhammaan dhulxeebeedkan oo dhan ma kamid ah iyadoo ay saatahay in maanta damac uu ka golo dad kale dhulka yaarada reer Awdal waa waxa loo joogin taana dibkeeda iyo daldaloleeda waxaan u aaneynaya dadka reer Awdal waxaan kula talinayaa isku tashada waa inaad isku tashataan dadka reer Awdal ma doonayeen hadalka sii dheereeyo hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa inta